casharka afaraad wuxuu ku saabsan yahay kulanka bimotande nolol maalmeedka qofka waxaa ku badan kulamada mootan kuwa oo ah kuwa aan la qorshayn iyo kuwa la qorsheeyey marar badan kulanku waa mid shakhsi ah halka marka kale uu yahay qayb ka mid ah shaqada qofka kulanku wuxuu abuuraa xiriir ka dhaxeeya dadka wuxuu asaas u yahay jiritaanka nolosha iyo in nolol maalmeedka qofka ay ahaato mid wanaagsan kulanka wuxuu mar kasta ku xiran yahay dabeecadaha dadka kulmayo sidaa daraaddeed waxaa muhiima in qofku dareensanaado sida aragtidiisa bini'aadanimo ay u saamayn karto kulanka ka dhaca goobaha daryeelka caafimaadka iyo xanaanada waa inuu ahaadaa kulanka loo yaqaano aniga iyo adiga iyo ogdumete uusan noqon kulanka aniga iyo shay iyo ogdadmete kulanka aniga iyo adiga waa kulan ku salaysan in qofka lala kulmayo loo arko inuu yahay qof bini'aadana oo leh fakar dareen iyo waayaragnimo kulanku wuxuu ku dhacaa hab ku salaysan sinaan oo ay labada qofood isku arkaan inay yihiin laba qof oo bini'aadana xiriirkooduna ku salaysan yahay xushmad iyo is-ixtiraam hase ahaatee kulanka aniga iyo shay waa kulan loo arko qofka shay aan dareen iyo waayaragnimo lahayn kulanku waa kulan qabow oo laga saaray bini'aadanimada qofka waxaa loo arkaa bukaan sidaa daraaddeed waxaa muhiima in goobaha daryeelka caafimaadka iyo xanaanada uusan ka dhicin kulanka loo yaqaan aniga iyo shay iyo ogdadmete arrintaa waxay ku caddahay xeerarka ka jira goobaha shaqada kulanka hore fashtamoted kulanka hore waa kulanka abuura dareen wanaagsan ama dareen xun marka hore waxay labada qof isu dayaan inay akhriyaan dareemada qofka kale ka muuqdo iyagoo akhrinayo eegmada codka hadalka iyo dhaqdhaqaaqa kulanka hore wuxuu abuuraa saaxiibtinimo ama aamin darro ku saabsan qofka kale oo aan la bedeli karin qodobada hoosta ku qoran ayaa loo baahan yahay in la tixgeliyo si kulanka hore uu u noqdo kulan abuuro saaxiibtinimo codka rastan ayaa la eegaa codku ma yahay mid dabacsan ama mid kacsan eegmada eegon contactan eegmadu ma tahay mid ay ka muuqato saaxiibtinimo xiiso mise waa mid abuurayso cabsi faham xumo ku saabsan qofka kale bilowgiiba dareenka wejiga ansiktis utrik kaasoo muujinaya farax iyo deganaan ama kacsanaan jirka crops holning qofka toosan oo madaxiisa sare yahay waxay muujinaysaa kalsooni halka qofka madaxiisu hoos yahay ay ka muuqato cabsi iyo kalsooni darro gacanqaadku wuxuu noqon karaa mid xooggan oo leh dareen ay nolol ku jirto ama mid qabow urta daftar urtu waxay qayb ka tahay in dadku isu soo dhowaadaan ama kala fogaadaan urta xun oo ay ka mid yihiin wasaqda dhididka sigaarka waa in layska ilaaliyo barfuumka adag waxaa jira dad badan oo xasaasi ku qabo sidaa daraaddeed waa in laga ilaaliyo goobaha daryeelka caafimaadka iyo xanaanada waxaa kulanka hore ee dhex mara shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo xanaanada iyo qofka bukaan socodka loo baahan yahay in se looga dhigo arrimaha soo socda in aad magacaada iyo xirfadaada u sheegto qofka sidoo kale inaad qofka ku wargeliso ujeeddada kulanka muuji deganaan saaxiibtinimo iyo in aad tahay qof hawshiisa yaqaan habdhaqanka anshaxa leh waa habdhaqan loo baahan yahay inuu ka jiro goobaha daryeelka caafimaadka iyo xanaanada habdhaqanka anshaxa leh etiska forholningset wuxuu tilmaamayaa in shaqaaluhu ay ka fikiraan isna weydiiyaan maxaa saxa maxaa qalada maxaa u wanaagsan qofka bukaan socodka maxaase u xun habdhaqankan wuxuu saameeyaa sida ay shaqaaluhu u maareeyaan xaaladaha kala duwan inkastoo ay goobaha shaqadu ka jiraan habraacyo iyo xeerar toosinayo sida shaqada loo fulinayo haddana mararka qaar waxaa dhacdo xaalado ay adag tahay in go'aan laga qaato sidaa daraaddeed waxaa wanaagsan in shaqaaluhu ay ka doodaan lana tashtaan shaqaalaha leh waayaragnimo dheer ama ay gaarsiiyaan madaxda ka sarraysa qofnimada barshunliheed qofnimada waa qodob kale oo saameyn weyn ku leh
habla dhaqanka dadka soo booqda goobaha daryeelka caafimaadka iyo xanaanada. qofnimada waxaa qaabeeya dhaxalka, barbaarinta iyo waayo aragnimo hore ee nolosha. qofnimada ayaa saamaysa sida uu qofka u falceliyo una dhaqmo. shaqada daryeelka caafimaadka iyo xanaanada waxay u baahan tahay in qofka uu yahay qof naftiisa yaqaan, dibna u milicsado halka uu ka xoogan yahay iyo halka uu ka tabar daran yahay iyo qaabka uu uga falceliyo xaaladaha adag. shaqaalaha waxay mararka qaarkood la kulmaan xaalado aan la saadaali karin. falcelinta qofka shaqaalaha ayaa saamayso shaqaalaha iyo qofka bukaan socodka. qofka bukaan socodka wuxuu ku xusuusin karaa xaalada aad soo martay. sidaa daraaddeed waxaa muhiima in aad isku daydo inaad ka fekerto sababaha keenay dareemada. waxaa wanaagsan in aad kala hadasho saaxiibada shaqada waxa aad dareemayso. qofka shaqaalaha waxaa loo baahan yahay inuu yahay qof leh empathiska verhoudingset. empathy waxay ka kooban tahay faham oo ah in uu fahmo qofka shaqaalaha xaaladda uu ku sugan yahay qofka bukaan socodka. qofka shaqaalaha inuu dareemo dareen la mida dareenka qofka bukaan socodka. qofka shaqaalaha inuu garan karo xanuunka hayo qofka isagoo ka duulayo waayo aragnimadiisa. iyo qofka shaqaalaha inuu muujiyo falcelin, tusaale ahaan inuu la fadhiisto oo uu dhegaysto qofka bukaan socodka. shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo xanaanada waa in uu muujiyo xiiso iyo dareen garasho oo ku saabsan xaaladda uu ku sugan yahay qofka bukaan socodka, isagoon dareenka ka dhigin dareenkiisa oo xanuunka hayo qofka bukaan socodka dusha saaran. habdhaqanka ayaa loo yaqaanaa empathiska verhoudingset. waa habdhaqan loo baahan yahay inuu leeyahay qofka shaqaalaha ee ka shaqeeya goobaha caafimaadka iyo xanaanada. beernugeelka sympathy waa arrin aan wanaagsanayn. beernugeelka waa marka qofka shaqaalaha uu dareemo dareen la mida qofka xanuunsan isla markaana uu la xanuunsado. goobaha daryeelka caafimaadka waa inaysan ka jirin beernugeel sympathy. haddii kale waxaa adkaanayso in qofka shaqaalaha uu guto howlihiisa shaqo. maxaa yeelay shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo xanaanada waxay la kulmaan dad leh baahiyo kala duwan kuna sugan xaalado adag. aragtida qofka manqusinan qofka shaqaalaha waxaa loo baahan yahay in uu kulanka uu la kulmayo qofka bukaan socodka ku saleeyo aragtida bini'aadanimo. dan humanistiska manqusin aragtida bini'aadanimo waxa ay tilmaamaysaa in qof kasta uu leeyahay sharaf iyo qiimo aan la dhaawici karin. qofka bini'aadanka waa qof ku dhashay isagoo xura dooran kara waxa naftiisa u dana. wuxuu xaq u leeyahay inuu saameyn ku yeelan karo, maamuli karo noloshiisa. shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo xanaanada waxaa loo baahan yahay inay ku dhaqmaan aragtida ku dhisan bini'aadanimada oo qofka u oggolaanayso inuu xaq u leeyahay inuu go'aamiyo xaaladaha la xiriira noloshiisa. go'aanka qofka khalaf bistemande baahida dadka ee ku saabsan daryeelka caafimaadka iyo xanaanada waa mid ku dhisan xurnimo iyo isfaham oo aanan qofka lagu qasbi karin. qofku wuu diidi karaa kaalmo iyo daryeel loo fidiyey. goobaha daryeelka caafimaadka waxaa ka jiri kara xadgudub xuquuqda qofka bukaan socodka marka uusan sheega karin cudur awgiis. sidaa daraaddeed waxaa habboon in shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo xanaanada ay gartaan hadalka jirka qofka xanuunsan. integriteed sharafta sida uu dhigayo xeerka arrimaha bulshada in sharafta qofka bukaan socodka la dhowro oo aan lagu xadgudbin. howlaha daryeelka caafimaadka iyo xanaanada waa howlo loo adeegayo ama la daryeelayo dad ku sugan xaalado adag, gaar ahaan marka laga shaqaynayo guryaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah. waa in shaqaaluhu u dhagan nuglaadaan codsiyada iyo falcelinta dadka. haddii kale waxaa dhici karto in sharaftooda meel looga dhaco. sharaf dhaca wuxuu noqon karaa siyaabo kala duwan. tusaale ahaan in qofka lagu qasbo wuxuusan rabin, ama la yiraahdo hadallo uu dhibsado, ama aan loo feejignaan baahidiisa kala duwan. qiimaha qofka faadhiheed oo respect. qiimaha qofka waa mid ku saabsan dareenka qofka ee ku aadan dadnimadiisa. howlaha daryeelka caafimaadka iyo xanaanada waa inay ahaadaan howlo ku salaysan xushmad si aan meel looga dhicin sharafta iyo qiimaha qofka. goob kasta ee ka tirsan goobaha daryeelka caafimaadka iyo xanaanada waxaa ka jiro habraacyo tilmaamayo
sida loola dhaqmayo qofka bukaan socodka. sidaa daraaddeed waxaa waajib ku ah shaqaalaha inay aqoon buuxda u leeyihiin xeerarka tusmaynaya howlahooda. xeerka arrimaha bulshada waxa uu dhigayaa in dhammaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo xanaanada ay howlahooda u qabtaan qaab suurtagelinayo in dadka waayeelka ama xanuunsan ay ku noolaadaan nolol qiimo leh. manihu vardesprincipen xeerka qiimaha qof kasta wuxuu leeyahay qiimo. daryeelka caafimaadka iyo xanaanada waa inuu ku dhisnaadaa sinaan iyo cadaalad oo qof kasta oo u baahan daryeel iyo xanaano la siiyo iyadoon farqi u dhaxayn kan ladan, kan madaxda iyo kan saboolka. Gutheidsprincip wanaag doon shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo xanaanada waa inay had iyo jeer isku dayaan inay wanaag u falaan qofka ay xanaanaynayaan, taas oo micnaheedu tahay inay ka ilaaliyaan dhaawacyada. aragtida dhammaystiran helhetsin xeerka arrimaha bulshada wuxuu tilmaamayaa in la xaqabtiro baahida nolosha qofka oo dhan. waa in shaqaaluhu fahmaan baahida kala duwan oo ay qabaan dadka waayeelka iyo dadka xanuunsan.